بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي هلكن وبرت يوتيوب مداشا wararka qodobada sida gaarka ah warbixintan aad ugu daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo wajahaya xaalad siyaasadeed oo cakiran Itoobiya waxay cagta u saaran tahay wadadii burburka dagaalada culus ee ka soconaya gudaha dalka Itoobiya oo xilligan ku soo dhawaanaya caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa mucaaradku waxay tibaaxeen in jabhadahooda ay ku soo dhawaanayaan caasimadda suurtagalna ay tahay in gacanta ay ku dhigaan waxaynu ku soo gudbin doonaa dagaaladii ugu dambeeyay ee cuslaa ee ka soconaya gudaha dalkaasi ra'iisul wasaaraha oo xilligan wajahaya xaalad siyaasadeed oo cakiran sawir ka yimid New Yorkna waxa uu ku noqday wadna qabad ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed dowladaha Masar Eritrea iyo Soomaaliya waxay ka shirayaan xaaladda geeska sawirka ka yimid New York ee wada jirka ah isla markaasna ay galeen dowladahaas ayay Itoobiya si kulul kaga hadashay haddaba maxay ka tiri waynu idin soo gudbin doonaa waxyaabaha looga hadlay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Masar Eritrea iyo Soomaaliya iyo xaaladda geeska ayaynu idin soo gudbin doonaa isla markaasna warkayaga aynu ku daawan doonaa haddii Rabbi uu ka raali noqdo sidaas oo kale qodobada aan daawan doonana waxaa qayb ka noqonaya maxaadan ka ogeyn hubkii habeen ka hor magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee soo galay waxyaabaha markaasi hubkaasi uu ka koobnaa Masar oo ka hadashay arintaasi iyo sidaas oo kale ma suurtagal ma tahay in saanad kale oo ciidan inay soo gaarto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xilli xaaladda geeska ay cakiran tahay ayaynu idin soo gudbin doonaa oo warkayaga aad ku daawan doontaan haddii Rabbi uu ka raali noqdo qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordha daqiiqadaha kooban ee warkan aynu ku guda jirno ayaan si wada jir ah u daawan doonaa balse daawadayaan ku xasuusiya haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horreysay ee bartan YouTube inaad subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato muuqaalkeena like aad saarta muhiim ayuu noo yahay qaybta hoose ee faallada ama commentigana oo raahdaada aad nagula reebto saaxiibadaadana aad la wadaagto si mar waliba ay u helaan wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan ku soo gudbino ee mahadsani daawade ugu horeyn haddii warkayaga aynu ku bilowno xaaladda geeska oo cakiran iyo New York shir wada jir ah ay ku qaateen wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya Masar iyo Eritrea iyo waxyaabaha ay kaga hadleen xilli xaaladda ay ka sii darayso wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa magaalada New York waxa uu kulan gaar ah kula qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo markaasi Eritrea wuxuuna kala hadlay xaaladda geeska ee xilligan cakiran wasiirada ayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka uga qayb galay kulanka 97aad ee markaasi golaha guud ee qaramada midoobay saddexda wasiir ayaa ka wada hadlay qorshaha isku dabaridka heer sare iyo rabitaanka siyaasadeed ee saddexda dal si loo gaaro yoolka iyo danaha wadamada saddexda ah ee Soomaaliya Masar iyo Eritrea ah dalalkan saddexda ah ayaa cadawgooda koowaad ee dunida xilligan u arkayo dowladda Itoobiya waxayna sameysteen xulafo aan markaasi xoogeysatay balse aan si gaar ah loo saacin siyaasadaha gaarka ay ka wada hadleen Masar iyo Eritrea waxay go'aansadeen inay cudud military ku garab istaagaan dowladda federaalka Soomaaliya si markaasi isaga kaashadaan danaha gaarka ah ee markaasi iyo khilaafka kala dhaxeeya dowladda Itoobiya iyaga oo xilligaani kulamo wada jir ah qaadanayo dowladda Soomaaliya ayaa fursad weyn ka dhax aragtay isgarabsiga labada dal waxaana qorshahani uu ahaa mid in muddo ah soo jiitamayay dowladda federaalka Soomaaliyana waxaa la sheegay tani inay u noqon karto fursad kale shalay Muqdisho waxaa ku soo xirtay markab sida hub iyo sidaas oo kale agab kale oo military oo aad u badan kaas oo ka yimid dalka Masar qorshaha socdana ayaa muujinaya inuu jiro diyaar garow xoogan oo ku aadan sidii dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi isaga dhisin lahayd dhinac walba oo military dowladdu hore waxay u sheegtay in markani ay la kulmayso cadaadisyo gudaha ah iyo dibadda intaba taa oo la xiriira in gudaha dagaal adag ay kula jirto kooxaha argagixisada ah halka Itoobiyana faragelin ay markaasi dhanka banaanka kaga hayso dowladaha Masar iyo Eritrea ayaa horay markaasi ula gaashaantay in Soomaaliya ay taageerayaan waxayna sidaas oo kale khilaaf culus xilligan uu kala dhaxeeya Itoobiya waxaa hadda xiisada markaasi muuqata in mar kale isxulafaysi ay sameynayaan
dalalkani saddexda ah marka loo eego kulanka wadajirka ah ee markaasi ay New York ku qaateen. Sawirka ka soo baxay New York ayaa markaasi waxa dadka gorfeeya siyaasadda iyo arrimaha ciidanka waxay ku fasireen in ay tahay tanina fariin kale oo ku aadan midowga wadajirka ah ay sameysteen saddexdani dal ee xilligan khilaafka adag uu kala dhaxeeyo dowladda Itoobiya. Horay Itoobiya waxaa dagaalo ay markaasi kala dhaxeeyeen iyo khilaafaad siyaasadeed dowladaha Masar iyo Eritrea. Markanina waxaa muuqanaysa in Soomaaliya dhankeeda ay kusoo biirtay kadib markii Itoobiya faragelin ay ku sameysay qayb ka mid ah Soomaaliya oo ay heshiis markaasi dowladda federaalka Soomaaliya aynan la socon ay markaasi la gashay Somaliland. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horay mowqifkeeda arrinkani kaga hadashay waxayna ka istaagtay meel cad oo ah in Soomaaliya aysan raali ka ahayn in wada xaajoodka iyo wada heshiiska ay galeen Muuse iyo sidaas oo kale Abiy Ahmed marnaba dowladda federaalka Soomaaliyana aysan ka gorgortameynin taako ciideeda ka mid ah marka loo eego wada xaajoodkii dhowrka ahaa ay wada galeen. Horay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya dhowr jeer oo la isku keenay isla markaasna dalal ay qayb ka tahay Turkiga la isugu geeyay. Guud ahaan heshiisyadaasi waxay noqdeen kuwo aanan miro dhalin isla markaasna is-afgarawaa kusoo gabagaboobay. Markii saddexaad oo lagu balansanaana Ankara waxay markaasi dowladda Turkiga ay xaqiijisay in kulankaasi uu baaqday isla markaasna uu fashilmay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan waxa uu sheegay in qorshaha saddexaad ay damacsan yihiin inay isugu keenaan dowladahan uu noqonayo in mid waliba si gaar ah ay ula xaajoodaan isla markaasna ay dhageystaan aragtidiisa ku aadan iyo sidaas oo kale mowqifka halka uu ka taagan yahay. Turkiga waxay si qayaxan u sheegtay in dhammaan wada hadaladii hore ee la qorsheynayay casharo ay ka barteen kuwa oo markaasi fashil ku soo dhamaaday. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horay waxay u tibaaxday in marnaba aysan gorgortan ka gelinin intaa ka mid ah dhulka Soomaaliya markaasi wada hadal iyo wada xaajood ay kala gasho federaalka ee Itoobiya ilaa iyo inta wada cad ay ka soo marayso ay wada kala hadlayso dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Geesta kale dagaalo culus ayaa ka soconaya markaasi gudaha dalka Itoobiya. Itoobiya dadka gorfeeya arrimaheeda waxay sheegeen in tanina mar kale Itoobiya ay caqabad ku noqon karto marka loo eego dagaalada culus ee gudaha dalkeeda ka soconaya. Mucaaradka ayaa noqday mid xoogeystay deegaano iyo degmooyin dhowr ah ayaa gacanta lagaga dhigay ciidanka federaalka Itoobiya. Waxaana xilligani muuqanaysa gobollo dhowr ah in ciidanka Itoobiya ay isaga soo baxeen. Geesta kale xadka Amxaarada iyo sidaas oo kale Eritrea waxaa la sheegay in ciidan fara badan oo markaasi ciidanka Eritrea ah in gudaha ay markaasi u soo galeen xuduudka, taas oo dhowr jeer hore eedeymo loogu soo jeediyay. Geesta kale ciidanka federaalka Itoobiya waxaa eedeymo loogu jeediyay in dagaaladii ugu dambeeyay ay galeen dad rayid ah ay waxyeelo ka soo gaartay iyaga oo madaafiican loo meeldayin ku garaacay gobollo dhowr ah oo qayb uu ka yahay gobolka Amxaarada oo ay ku dileen dad rayid ah. tira markaasi ka badan 18,000 oo dad rayid ah ayaa la sheegay in isaga barakaceen dagaalada ka soconaya gudaha dalka Itoobiya. Tanina waxay noqonaysaa caqabad iyo culays kale marka loo eego dhowrkii bil aynu ka soo gudubnay ay dadkaasi isaga barakaceen. Malaayiin Itoobiyaan ah ayaa haatan u barakacay markaasi gudaha dalka Suudaan. Waxaa la sheegay kuwo kale in xilligani macluul daran ay markaasi soo ridanayso xilli mucaaradkan ay ku sii dhawaanayaan caasimadda dalka Itoobiya oo Addis Ababa ah oo shalay xilli hore ay sheegeen in wax ka yar 150 kiiloomitir ay xilligani u jirto, taas oo caqabad iyo culays kale ku noqonaysa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. Itoobiyana xilligan waxay u muuqataa mid cagta saaraysa wadadii burburka marka loo eego madax adeega ra'iisul wasaaraha dalkaas. daawada guud ahaan warkii waad kala socotay waa madasha wararka waa naginta waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka korkeega. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay bartan aan ku xusuusiyay in muuqaalkeena like aad saarto, subscribe aad dhahdo gambaleelkana aad furato si mar waliba aad oosh wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan kugu soo gudbin. halkani waa madashay mahadsanid daawade.